Hello guys, aad baa idin salaam dhamaantiin. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida aad u akhrisan kartid chatting-ka ama sheekada labada qof dhex martay WhatsApp-ka. Tusaale ahaan saaxiibka ama saaxiibta taleefankiisa ayaa gacanta ku haysaa. Waxaa aragtay qof uu la sheekaystay ama qof ay la sheekaysatay. Sheekada in aad akhrisataa rabtaa, waqtigan wuu kugu yar yahay. Marka taas xal waa loo hayaa, waana sida soo socoto ay la soco. Okay, marka ugu horeyso waxaad sameynaysaa WhatsApp-kaaga ayaa furaysaa. Waxaad tegaysaa labada qof sheekada dhex martay ayaa tegaysaa. Waa kana qofka WhatsApp-kiisi. Markii aad WhatsApp-ka aad joogtid, qofkii aad rabtay sheekadiisa ayaad ku dhufanaysaa. Tusaale ahaan lambarkaana isaga dhufanayaa. Waa kana sheeko badan ayaana dhex martay qofkan. Lambarkaas calaamadda geeska ah oo saddexda dhibic ayaan ku dhufanayaa. More ayaan sii taabanayaa. More markii aan ku dhufto wuxuu ii soo saarayaa optionadaas faraha badan: report, block, clear chat, export chat, add shortcut. Export chat ayaan leeyahay. Without media or include media ayuu leeyahay. Haddaad rabtid sawirrada iyo muuqaalada iyo waxay isdhaafsadeen labadaas qof waa ku darsan kartaa. Haddii aad rabtidna waa iska reebi kartaa. Okay, hadda without media iska dhahaynaa annaka. Waxaad tegaysaa marka qofkii aad rabtay inaad u dirtid ayaa tegaysaa WhatsApp-kiisa. WhatsApp-ka ayaa furaysaa. Lambarkaadaa rabtaa inaad ku dirsatid. Lambarkaaga ayaa raadinaysaa ama lambar kale lambarkii aad rabtid inaad ku dirsatid ayaa tegaysaa. Waad tegaysaa waa dooranaysaa lambarkii asaga ahaa. Send ayaa leedahay. Ayadoo isku xiran ayay sheekadu u tegaysaa. Marka bal markii aan dirsado taleefankayga sidee iigu muuqan doontaa, sideen u akhrisan doonaa. Waa kana muuqaalka labaad oo markii aan dirsaday sidee u soo muuqanayso ila soco. Okay, marka WhatsApp-kan furayaa. Markaan WhatsApp-ka furo, lambarkii ii soo diraan fiirinayaa. Message-ka meesha ku dirtaan furayaa. Markii aan furo, markiiba wakaasa uu ii soo saarayaa sheekada qofkii labada qof dhex martay. Markiiba waan akhrisan karaa wakaasa taariikhdii, wax walba xilliga la isu diray dhan, fariintii, su'aal iyo jawaabba intaba wuu kusoo qorayaa meesha. Marka sidaas aad u akhrisan kartaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subscribe dheh si aad ula socotid wax waliba aynu soo dhigno mar waliba. Fadlan ha iloobin gambaleelka si fariintu ay kuu soo gaarto mar waliba aynu wax soo dhigno. Mahadsanid.